ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام هذا أسقناتي نسوى في جي إن الشقة قرن كلا نوع من أن قبرنا شغلة سو أن كسر بالله وني عاوة بارس ده حديث ساعة دقمدا دركين لي حدنا أن جونا دقمدا ورتنا ودا زجوجك على كمين أو مدة أو آد أفقنا أننا أهانتين أو آد أن وقت بدن أن سكر من المشان لكن فرحد نقطة هاي وحيالها أن محلية هذا أن أضرب جل حكمي نظافة دي مقالة مقدشو وحان هذا علينا إيش إن بهدي نظافة كشغيني سي ودور ذاكي سي شغالها وحمودين إلا والمريو وأنا كو أماننا هوشق أي خبتين حضرنا جول كبنادن إن شاء الله تحقين جار أيانسين دونا وحين نغون دونا دقموين كترتم بيجلي دونان ترتم كاسنا وحان رجينا إن شاء الله دقمدي كو جلسنا أول مرة أنسين دونا waxaan ku soo dhaweynaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha howlaha guud walaalkii xasan jimcaale insha Allah xasan dheere soo dhawow الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبكي walaalkay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir walaalkay agaasimaha guud howlaha guud agaasimayaasha nadaafada iyo solarka korontada dhamaantii kala duwan saxaafada guud ahaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن عاوة آد وفرحسنا هاي شقة أذك بحد له أو إمامها كشقينيين تيممك كالدوان وهركعي أجسمها جود هولها جود أرنتي سجود جرتي بالعسو علنتا مقالة مقدشو إياه سر وقادة هرمركا عاصمة مقدشو أنا أرنتي كدولينو شقوين كمالمها السعودي يعني waxaan ku soo kala bixinay kormeer dhammaystiran aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo tiimanka kala duwan shaqadii ay hayeen maalmihii la soo dhaafay tiimanka oo aan caawa ka soo bilownay sono dharkeenley ex control anagoo socod dheer ku soo marnay wadooyinka jidka wadnaha sodonka oo hadda ku sugannahay cali kamiin anagoo aad u qadar rabno inaan horena ugu sii gudubno insha Allah ta'ala waxaan u mahad celinayaa tiimanka shaqada adag ay ka qabteen nadaafada oo runtii ay noo muuqanayso wax la taaban karo oo mug leh oo miisaan leh waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynaynaa shaqadan inaad hor u sii wadaan lana ilaaliyo dibna is u soo laabanin wasaq iyo nadaafad daro dhammaan sida aan ku soo bixinay kormeerka waxaan noo muuqanaysay in leerarku aysan ahayn kuwa shaqaynayo oo ay cilado ka jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala maalmaha soo socdo in dadka reer Muqdisho ay arki doonaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo wada iftiimayo oo wada hilaacayo oo runtii ay ka muuqato iftiin iyo nadaafad iyo runtii horumar taasoo runtii tiimka cusub ee gobolka Banaadir ee horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir handuqa magaalada Muqdisho Yuusuf Madaale ay qayb weyn runtii ay ka tahay siyaasadooda lagu horumarinayo gobolka Banaadir in ugu horeyn bilcada la soo celiyo leerarka loo shido taasoo runtii qayb ka noqon karto sugista amniga marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala maalmaha soo socdo in aan arki doontaan in magaalada oo wada iftiimayso xaaladeeduna ay fiican tahay nadaafadeeduna ay quruxsan tahay bulacadaha iyo waxyaabaha la xiriiro oo dhanna oo idan hadda shaqo ka socoto dhawaan qadaro aad arki doontaan in biyo xiranadaas oo runtii dhibaato badan ku hayay shaqo badan laga qabto oo runtii aan ku guuleysano muddo aan ka badnayn hal sano gudahood hawlahaas oo dhan lagu qabto insha Allah ta'ala qorshahaasna runtii waa qorshaha koobaad ee gobolka Banaadir maamulkiisa u dajisan oo aan rajaynayno insha Allah ta'ala inaan xaqiijino waqtiyada soo socdo bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir degan waxaan ka codsanaynaa shaqadan culus ee socoto inay garab ku siiyaan tiimanka kala duwan ee ku hawlan hawshaas iyada ah qof walbana uu hortiisa nadiifiyo una hagaajiyo aysan dhicin meel la hagaajiyay oo wasaqdii laga qaaday in dib loo soo dhigo qashinkii aysan dhicin waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadweynaha degan gobolka Banaadir guud ahaan inay ilaashadaan leerarkooda oo ay runtii dhicin in leerarkii dib loo ciladeeyo ama dhibaato loo geysto maxaa yeelay leerarka iftiimaayo waxay qurux u tahay guryahooda waxay hagaajinaysaa guryahooda waxay hagaajinaysaa qiimiga matqanay uu leeyahay guriga iyo xaafadaas iyada ah waxay qayb ka noqonaysaa amniga marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in dhammaan la iska kaashado
in amniga magaalada muqdisho aan gacan bir ah ku qabanno oo aan la dagaalanno nabaddiidka inoo diidan in magaalada muqdisho ay iftiinto dee ma garan karno nal sabab loo qarxiyo ma garan karno nal iftiimayo sababta mataqaanaa lagula baxo qalabkiisii waa nasiib darro marka waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed ee muqdisho deggan in ay nagala shaqeeyaan inay ilaaliyaan annaguna hadduu aabba qadar waxaan xoogga saaraynaa maalmaha soo socdo sidii aan dhammaan waddooyinka aanu iftiimin lahayn insha allahu tacaala waa xilli dambe waxa aan taagannahayna waa isgoyska calikimiin ee degmada warta nabadda waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar waxay tani ka turjumaysaa in nabaddiidku ay jabeen magaalada muqdishona ay nabad tahay horna in loo socon doono insha allahu tacaala guulaysta mahadsanidin